السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada oo Maxamuud cashkan waxaynu ku baranaynaa 10 kan animation oo saaran ereyga koowaad barrel waa fuustada caadiga taqaani ayaa la yiraahdaa barrel. Yes, the barrel is full. ereyga labaad basin waxaa la yiraahdaa baaf ama beshi. Yes, baafkan biyaha ama dharka lagu dhaqdo basin waa la yiraahdaa. Baafna waa la dhigi karaa, beshin waa la dhigi karaa of course. Yes. ereyga saddexaad bay waxaa la yiraahdaa badda markay saa u weyn tahay meesha dhulka kala kulanto. Yes, adigu meesha badda laga galaayo ayaa la yiraahdaa bay. Yes. Okay, bench waa kursi yar oo sidaa u yara dheer oo dhowr qof ku fadhiisan karaan. Yes, kuraasta dheer ee dhowr qof loogu talagalay ayaa la yiraahdaa bench. Yes, the bench is wooden. Qaarkood inta badan waxay ka samaysan yihiin alwaax. Yes, waa kursi sidaa u dheer 5 qof 4 qof 6 qof ay ku fadhiisan karto. ereyga shanaad benefactor waa samafale, qof dadka caawiyo, lacag siiyo, xoog wax walbo adigu he helps the people. Yes, qofkaas ayaa la yiraahdaa benefactor. Soomaalida waxay u taqaanaa samafale. Yes. ereyga lixaad bless waa barako. God bless you, Ilaahay ha ku barakeeyo. Yes. I wish you a lot of blessings. Baraka badan baan ku rajeynayaa. Bless marka waa barako. habaar iyo inkaar baa jirto waxaa la yiraahdaa curse. Yes, curse, don't curse me, hay habaarin waa. God bless you, Ilaahay ku barakeeyo. Marka bless waa barako ama blessing. ereyga toddobaad bloom waa geedkan uu booq ubax soo saaro. Yes, booq ubaxa markuu tusaale mir soo saarayo ama ubax buu yahay bloom ayaa la yiraahdaa. Yes, trees bloom early, booq ayay soo saareen. Of course waxay soo wadaan miro. waxaa kaloo jirta iyadana blossom waxaa way ubax, a flower ama geedka markuu ubax soo bixinayo ayadana blossom waa la karaa. bloom bay isku macno yihiin. Yes, ama iska dhow yihiin. ereyga sagaalaad bulletin waa warbixin ama wargeys, yani inta badan waxa soo saaro adigu company ama maxaa hay'ad dawladda soo saarto for an official announcement. Yes, taas ayaa la yiraahdaa bulletin. Yes. For example, our school used to have a bulletin, a Sunday bulletin. Marka waxaan dhahnaa the school posted a bulletin. Schoolku wuxuu soo saaray yani official announcement oo yara gaaban. Yes. ereyga ugu tobnaad ee ugu dambeeyo bunch waa koox walxa, koox ashyaa. A group of things ayaa la yiraahdaa bunch. For example, waxaan ku leeyahay a bunch of keys, a group of keys waa. Yes, ama a bunch of bananas, koox yani ama in yar hayn moos ah. Marka bunch waa a group of things, waa koox waxyaalaha. cashka intaas ayuu ka yahay. Keep learning and have a good day. Bye bye.